asxaabay soo dhawaada. Haddii aad halkan ku cusub tahay, waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe inoo saarto. Waa codsi hanaga ilaawin. Fadlan hadda saar laagna taabo si muuqaaladeena ay u gaaraan dad tiro badan. Ha ilaawin gambaleelka si muuqaalka u qaybta notificationka uu kugu soo dhaco. Intaa kadib, haddii aad tahay saaxiib nala sii joogay sanado badan ama bilooyin badan ama marar badan, waad ku mahadsantahay la joogaaga iyo dulqaadkaaga, laakiin laagta hanaga ilaawin, commentina kusoo qor fariintaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Anigu waxaan ahay King Solfer, waxaad iga daawanaysaan King Solfer Pro. King Solver Pro. waayahay asxaabtada qaaliga ah, isku soo noqosho wanaagsan. Filimka ayaa waxa uu ku bilaabanayaa mayd laga soo saarayo qaybta dambe ee baabuurka. Dilaaga ayaa ugu dambeyn aasaya meydka. Kaamaradu waxay qabanaysaa wiil lagu magacaabo Jack oo wadada dhinaceeda taagan, dalbanaya in darawaliintu ay siiyaan lift, laakiin baabuur marnaba u istaagaya ma jira. Isagoo aad u yaaban ayaa wuxuu wadada dhinaceeda ku arkaya boor ay ku qoran tahay ma jiro darawal ka qaadi kara qof bani aadam ah wadadan dhexdeeda. Taa waxay ku dhalinaysaa shaki aanan inaba caadi ahayn ninkii Jack ahaa. Jack oo iska sii socda, iska sii lugeynaya, ayuu wuxuu imaanayaa wado weyn ee Afrigeesa. Kadib wuxuu la kulmayaa wiil iyo gabar dagaalamaya. Wuxuu isku dayaa inuu gabadhii caawiyo. Kadib wiilkii ayaa Jack kala tuuraya, halkaas ayuuna wiilkii ugu dhaqaaqaya Jack iyo gabadhii u wadayba. Gabadha ayaa waxay isbaraysaa Jack, waxay leedahay, magacaygu waa Veronica, anigu waxaan ka soo jeedaa wadanka Faransiiska, laakiin aad baan u aqaanaa luqadda Ingiriiska ay leedahay, maadaama Jack isagana uu yahay nin ka soo jeeda wadan looga hadla luqadda Ingiriiska, laakiin waxay isku fahmi doonaan luqadda iyada ahi. Kadib waxay isku dayi doonaan, maadaama ay labadooduba wax ka dhexeeyo ay yihiin, inay baabuur helaan, inay lift helaan, iyagoo haddana isku dayi doona midka kale inuu wax sharaxaad bixiyo oo ay isbartaan. Veronica waxay leedahay, aniga hooyaday iyo aabahay lama nooli, maxaa yeelay labaduba ay geeriyoodeen, waxayna u geeriyoodeen cudurrada loo yaqaano chronic illness ama cudurrada raaga. Iyagoo baabuur walila ayay waxaa ku dhacaysa in gabalku uu ku dhaco. Way isgeysnimin doonaan, waxayna isku dayi doonaan in ay seexdaan. Marka ay tahay banaanka dab ay shidanayaan, Veronica ayaa waxay soo bixinaysaa waraaq yar oo isku boojeynaysay, waa isku mashquulinaysay, wax ku qorqortay. Kadib waagaa baryayo, ninkii Jack waa uu soo kacayaa, maba joogtaba gabadhii Veronica ahayd. Soo raadinaya, soo doonaya, wuxuu ku arkayaa bal yaroo biyo ah iyadoo ku qabaysanaysa. Wada qabaysa kadib waaga ayaa baryaya. Kadib halkaa waxay kasii wada doonaan safarkii dheeraa ee sugayay. Weli baabuur u istaagaya ma jiro. Waxay si lama filana ku arkayaan darawal intuu u istaagay dhankooda soo eegaya. Xaggeed rabtaan? Aniga ayaa idin soo dhaweynaya, ayuu markaa ayada darawalkii leeyahay. Veronica oo ka yaaba ninkan, isla markaasna ka shakinaysa, ayaa iska soo raacaysa. Isbarasho dheer kadib, Grizzard ayaa lagu magacaabaa darawalkan soo qaadaya. Marka ayada Veronica iyo Jack barasho dheer kadib, Jack ayaa wuxuu leeyahay, aniga waxaan kasoo jeedaa wadanka UK. Jack sidaas ay waxay isku wadan u noqonayaan gabadha uu qabo Grizzard, maadaama isku wadan ay kasoo jeedaan. Darawalka ayaa wuxuu ka codsanayaa Jack iyo gabadha la socotaba in uu geeyo isaga gurigiisa. Waxayna imaanayaan guriga Grizzard. Waxaa soo dhaweynaysa Mary oo ah xaaska Grizzard. Qolka ayay soo galayaan. Guud ahaanba waxaa la siinaya laba qol ee ay ku nastaan. Ninkii Jack ahaa wuxuu imaanayaa qolkiisa, aad buu u daalnaa, uu kala dhacaya maadaama uu maalin iyo habeen soo safrayay weliba. Maalinta dhan buu hurdayay, habeen ayaa lagu gaaraya. Markuu soo kaca kadib wuxuu arkayaa box ay ku qoran tahay Grizzard. Wuxuu isku dayaa inuu iska fiiriyo. Wuxuu arkayaa marka ayada sawirro. Wuxuu isku dayi doonaa in sawirradan iska fiiriyo. Wuxuu arkayaa Grizzard iyo Mary. Wuxuu arkayaa wiil yar iyo gabar yar ayuu sawirradiina ku dhex arkaya. Habeenkii markii la soo yimaado cashadii, aad bay la yaab ugu noqonaysaa in aysan caruur gurigan joogin, haddana sawirkiina uu ku arkaya wiil iyo gabar. Shaki ayaa galaya mar kale. Kadib Jack banaanka ayuu soo baxaya. Wuxuu banaanka ku arkayaa Veronica oo banaanka sigaar ku cabaysa. Wuxuu weydiinayaa, ma la yaabta buu leeyahay ilmo inaysan gurigan joogin. Markaas ilaata aniga waxay la dhashay wiil, wiilkiina aniga asagoo ciyaarina ciyaarta loo yaqaan dhudhuumashalowga ayaa baabuur weyn ayaa madaxa ka maraya leedahay. Kadib wuxuu soo galayaa qolkiisa. Wuxuu arkayaa ninkii Grizzard ahaa oo filim daawanaya. Markaas wuxuu leeyahay, niyahow aniga inaan baxo ayaan rabaa si uu familkiisa dib ugu laabto. Sidoo kale Veronica ayaa iyaduna qorsheynaysa inay wadankeeda dib ugu laabato. Kadib Jack ayaa wuxuu weydiinayaa ninkii Grizzard ahaa,
wuxuu leeyahay wax caruur ah niyo ma leedahay, markaas wuxuu leeyahay wax caruur ah aniga ma lehi. Jack ayaa aad ula yaabaya sawiradii uu ku arkay caruurta, haddana uu leeyahay gurigan qof ma joogaan. Ninka Grisad ahaa shaki ayaa mar kale ku dhalanaya ninka odayga ahaa ee Jack ahaa. Jack oo aad u shakisan ayaa waaga u barya. Waaga markuu baryo waa uu cadaysanaya, qabaysanaya, isdiyaarinaya. Markuu soo baxa wuxuu raadinayaa gabadhii Veronica ahayd, isagoo magaca Veronica ku celcelinaya, ku qaylinaya ayaa uu hoos usoo degaya. Hoos markuu usoo dego waxaa markiiba ka hor imaanaya ninkii Grisad ahaa oo gacanta ku wata burus ama yuunda ama dubo saa u taqaanidba. Shaki ayay ku dhalanaysaa. Then Jack wuxuu isku dayi doonaa inuu guriga isaga cararo maadaama uu dhaqan xumo ku arkay ninka odayga ahaa, horin uu u shakisanaa. Then Jack oo soo cararaya ayaa waxaa kasoo daba cararaya isaguna ninka Grisad ahaa. War hooy joog ayuu leeyahay. Kadib waxa uu leeyahay war aniga buruskan waa iska wati maahane, wax baan ku hagaajisanay. Kadib Jack waa uu aaminaya ninka Grisad ahaa maadaama uu tusiyay waraaq ay qortay gabadhii Veronica ahayd ayna guriga dib ugu soo laabanayso. Kadib Jack waxa uu soo xasuusanaya waraaqdii hore ay qoraysay gabadhii Veronica ahayd. Kadib labada far ayuu isku barbar dhigaya. Kadib wuxuu dareemayaa in waraaqdan dambe laga sameeyay lagana been abuuray. Jack oo aad u shakisan maahe madax ayaa nabar weyn kaga dhacaya, dhulka ayuu ku dhacaya. Isagoo aad u miir daboolan ninkii Jack ahaa ayaa waxa uu soo miir kacaya isaga oo ku dhex jira baabuur gudihiis. Markiiba dib ayuu usoo xasuusanaya baabuurkaana baabuurkeed arkaysay filimka qaybtiisa hore ee bilowga. Kadib waxa uu keensanayaa gurigiisa. Waa nin xoogaa dilaa isagana u muuqda. Marka iyada ahi iyo lafa iyo balaayo guri u yaalaan, cabsi badan ayuu dareemaya ninkii Jack ahaa. Jack oo aad u cabsanaya, maskaxdiisana ka shaqaysiinaya ayaa waxa uu isweydiinayaa in xaafadan uu yimaaday oo dhanba ay tahay xaafad dilaa ah, because waxa uu shakiyay markii hore uu joogay gurigii hore wiilkii gabadh yaraa ee ninka Grisad ahaa ee uu dhalay ayuu guriga ka waayay. Wuxuu dareemanaya iyaga cuneen. Then waxa uu haddana dareemayaa in marka iyada ninkan soo afduubtayna isagana uu dilaayahay. Then ninkii odayga ahaa haddana waxa uu bilaabayaa inuu ka qaado sawir. Jack oo aad ula yaaban sawirka ninkan uu ka qaaday iyo halka uu wado, waxaa haddana dib loogu soo celinaya qaybta dambe ee baabuurka uu marka iyada ka saarnaa markeedii horeba. Then wuxuu isku dayaa cirbad uu rabo in uu ku horudsiiyo inuu isaga duro ninkii Jack ahaa, kadibna uu wato meesha uu kusoo qali lahaa halka uu geysan lahaaba. Intaanu cirbada galin wuxuu arkayaa gurigiisa oo qaac iswada qabsaday. Uu ordaya, wuxuu daminayaa wax asaga marka iyada u shidnaa. Kadib Jack ayaa isku dayaya inuu meesha ka baxsado isagana cararo ninkan dilaaga ah. Wuxuu isku dayay inuu masbaar isaga jaro koolada gacanta kaga dhagan. Then way u suurtagelaysaa. Wuxuu durbo u soo ordayaa inuu imaado guriga Grisad. Wuxuu arkaya Maria iyo Grisad oo guriga ka tagaya isticmaalaya baabuurkoodii. Then gudaha ayuu soo galaya, isku dayaya inuu arko bal gabadhii isaga la socotay. Durbo si degdeg ah wuxuu ku arkayaa halkan iyadoo ku cinqaab badan ay mariyeen, afkana ay ka xiran tahay. Durbo ayuu gacanta iyo xerka ka furfuraya. Then waxaa si kadisa markiiba kusoo laabanaya Maria iyo Grisad. Waxay ka baxayaan qaybta dambe ee guriga, laakiin nasiib xumo waa la arkayaa iyagoo guriga kasii baxayo ay arkayaan. Grisad iyo Maria waxay baabuurka soo daba qaadanayaan Jack iyo gabadhii yarayd. Then waxay isku dayaan in baabuurka kusoo qabtaan. Then ugu dambeyn waxay la soo baxayaan qori. Markeedii hore guriga hore ugu soo qaatay markay soo cararayeen. Then qoriga ayay isaga caawinayaan, waa isaga tagayaan. Waxay mar kale qoorta u galayaan gurigii ninkii hore ee soo afduubanayay ninkii Jack ahaa. Iyagoo banaanka jooga ee nabarada soo gaaray isku dayaysa inay ka dhaydo, waxay gudaha usoo galayaan gurigii ninkii hore ee markaa iyada soo afduubanaya ninkii Jack ahaa. Veronica oo isku dayaysa inay disho ninkii odayga ahaa ayaa qoriga dhanbaa ka dhacaya. Then waxaa caawinaya Jack oo raba inuu ninka markiisa dilo kana aarsado, laakiin ninkii ayaaba intuusan birxoodo bir dambe oo shaab ah kasoo galaysa dhabarka, halkaas ayuu ku dhimanayaa. Veronica oo aad moodo in aysan ku qanacsanayn inuu dhintay ninkii odayga ahaa in kale ayaa waxay soo qaadanaysaa midi ama toorisa u taqaanidba, wadnaha ayay ka gelinaysaa si u xaqiijiso inuu dhintay. Waxaa imaanaya Gris iyo xaaskiisii si ay mar kale gacanta ugu dhigaan, laakiin Grisad ayuu afaarsis kula hadlaa gabadh yarta ah. Markii waxay dareemaysaa inuu yahay aabihii. Wuxuu soo xasuusanaya yaranteedii, wuxuuna dareemay in exactly ay tahay gabadhiisa yarayd ee ka dhuntay. Gabadha Veronica been bay u sheegaysay ninka Jack ahaa maadaama iyadu ay gacanteeda ku dashay wiilkii la dhashay ee ay lahayd baabuur ayaa maray. Sidoo kale ninka la yiraahdo Grisad isaguna been buu u sheegay ninka la yiraahdo Jack maadaama uu ogaa gabadhiisu inay tahay dilaa, isla markaana uu been u sheegay ninka la yiraahdo Jack. Bilowgay filimka waxaan aragnay mayd laga soo dejinaya baabuur qaybta dambe la aasaya
waana meydka iyadoo walaalkeed ka weynaa, qofka dilin waa iyada, qofka aasayana waa iyada. Kadib Jack oo aad u careysan ayaa wuxuu leeyahay soo dega, dhulka soo dega ayuu leeyahay Grizzard iyo xaaskiisa. Furninka ayuu ku leeyahay gacmaha iga xir. Kadib waxaa isku dayeysa Maria inay luqadda Ingiriiska ay kula hadasho ninka la yiraahdo Jack, una sharaxdo inay tahay gabar iyagu ay wada dhaleen. Kadib intaysan warka sharaxinba waxaa garaacaysa gabadheedii furninka ahayd, then halkaas ayayna ugu soo tagayaan labadoodiiba. Waxay dib ugu soo laabanayaan magaaladii hore ay ka yimaadeen, iyagoo isla markaasna dhoola cadeynayo faraxsan. Intaas waxaa ku idlaaday filimkii qisada quruxda badan ee watay iyo gabadha dilaaga qarsoon ahayd. Fadlan haddii halkaan soo gaartay waxaan kaa codsanaya walaal nagu dhiirigeli inaad filimka ama inaad muuqaalka inoo like garayso si dad badan inoo gaaro. Waa codsi walaal, daqiiqada yar qaado, noo like garay, comment ka soo bixi sidoo ayaga aad ka qabto iyo filmaanta aad doonayso inaan kugu soo koobo. Sida hadda filimka daawateen waa 11 daqiiqo wax ka yar, haddana maxaa la yiraahdaa filim dhameystiran ayuu ahaa oo 2 saac ku dhawaad ama 1 saac bar soconayay. Intaan ayaana kugu soo koobay, marka waxaad dareemi kartaa in wax badan aan ku faa'iideeyo. Mahadsantahay, fadlan subscribe channelka, like garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.